daawade halkan waa M252 kusoo dhawow muuqaal kale anoo filay inaad aragtay waxaan hore muuqaal uga sameeyay sida aad telefoonkaaga Android-ka ugu xiran lahayd shaashadaada Smart TV-ga muuqaalkanna waxaan rabaa inaan uga hadlo sida aad computerkaaga Windows-ka ugu xiran lahayd shaashadaha Smart TV-ga sida kan oo kale adigoonan adeegsanin wax cable ama fiila ah laakiin dabcan waa in computerkaaga uu lahaadaa teknolojiyada loo yaqaano wireless display technology haddii laptopkaaga uu yahay laptopyadii dabcan soo baxay sanadihii dambe waxaan filayaa inuu leeyahay wireless display technology anigoo soo koobaya waxaan rabaa sida aad computerkaaga Windows-ka ugu xiri lahayd Smart TV-ga wayna fududahay dabcan ila dhameyso muuqaalka si aad computerkaaga ugu xirato shaashadaada Smart TV-ga cable la'aan ama xarig la'aan waxaad marka hore tagaysaa qaybta settings-ka ee laptopkaaga marka aad tagto waxaad ka sii tagaysaa qaybta display markaad display tagto hoos ayaad u soconaysaa ilaa aad ka aragto multiple displays dabcan haddii aad rabtana halkan fine settings-ka waad ku qori kartaa wireless display markaad multiple displays doorato halkan ay ku qoran tahay connect to a wireless display oo ay buttonka connect ka horeyso ayaad dooranaysaa markaad sidaa u doorato computerkaagu waxa uu raadinayaa Smart TV-yada kuu dhow oo idil dabcan marka uu halkan kuugu soo saaro midka uu kaaga yahay ayaad ka dooranaysaa sida kan oo kale hadeer waa uu ku xirmayaa balfiiri waa ka connected ayuu leeyahay waa uuna ku xirmay balan ku tusiyo waa ka balfiiri waa uu ku xiran yahay hadeer shaashada Smart TV-gaaga waxaad u adeegsan kartaa sida shaashad labaad oo kale oo aad laptopkaaga ku xiran karto dabcan marka aad cable-ka ku xirto habka uu yahay oo kale ayuuna hadeer u muuqanayaa oo wax walba ku tusinaya haddii markaad u baahan tahay in aad ka jarto halkan disconnect kaliya ayaad dooranaysaa waa uuna ka jarmayaa sidaad u jeedo oo hadeer innaba kuma xirna ugu dambeyntii sideed u aragtaa farsamadan haddii aad horey u tijaabisay oo aad isticmaali jirtay fadlan faaladaada qaybta hoose ee faalooyinka noogu sheeg si ay dadka kale wax uga ogaadaan ha ilaawinse haddii aad taqaan qof saaxiibkaaga ah oo laptop noocyadii dambe ah leh inaad qaybta hoose ugu yeerto si uu muuqaalkan uga faa'iideysto anigu kaaga mahad celinaya waqtiga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan inta laga gaariyo muuqaalka xeeba idankii nabadgelyo nagu soo biir haddii aadan ka mid ahayn asxaabta M252 waan ku soo dhaweynaynaa Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to